shan maalmood kadib dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay markabka shixnadaha hubka sida ee gacanta Puntland galay 18 bishan 2025 xasan sheekh waa iskeenay dowladdiisu waa sheegatay waa faahfaahin doonaa warqadda ka soo baxday dowladda balse maxaa warqaddaasi ka horreeyay markabkan muddo shan maalmood waa la isku turtuurayay war Turkiya sheego war aniga sheegan maayo war Masar adiguna sheego war anigu sheegan maayo markii dambe waxa la yiri adiga dawladdaadu madaxweynaadkaaguna dhamaaday waxna ka gelin Soomaaliya adigu sheego sida darteed xasan waa iskeenay hadda sheegashadan shan maalmood baa la sugayay hadduu markabku sharci yahay dawladdu maxay u sheegan weysay maalmihii la soo dhaafay hadduu markabku wada sharciya ku socdo oo ay Puntland ku gardarnayd in ay weerarto maalintii jimcihii la soo dhaafay 18 bisha aynu ku jirno maxay dawladdu u sugaysay ilaa iyo 23 bisha maanta ah waxay taa ka dhigan tahay waa la isku turturay marna Turkiga loo tuuray marna Masar baa loo tuuray marna dawladdii xasan sheekh labadii dawladood waxay yiraahdeen ama sheego ama iska daa annaga hubkaasi indhaha caalamka naguma soo jeedinaysid marka Turkiga waa diideen Masarna waa diiday xasan sheekh isu soo biimeeyay marka waaya maamulka Puntland waxay sugaysay jawaabta ah wadanka sheegta kan soo raray iyo kan loo soo rarayba marka hadda markabkii jiha ayuu yeeshay jiho loo raaco ayuu yeeshay dhinaca kalena Puntland ayuu xalaal u noqday hadda markabku waa u xalaal hayelay baahi ay Puntland u qabto ayaa boqolkiiba boqol ka weyn Soomaaliya inteeda kala baahida ay u qabto marna waa u xalaal marna markabkii jiho ayuu yeeshay meel loo raaco reference uu yeeshay waana tusaale ku filan bulshada Soomaaliyeed reer Puntland hadday go'aan qaadan karaan marka hadday go'aan qaadan karaan wixii ka dambeeya daqiiqadii warqadii dawladda dhexe ka soo baxay go'aankaas wuxuu dul yaalaa hadda Puntland baa go'aan ka qaadan doonta waayahay war saxaafadeedka ama warqadda ka soo baxday dawladda Soomaaliya nuxurkeeda ayaan rabaa horta inaan idin la wadaago nuxurka warqadda waxay dawladdu sheegtay inuu ku socday xero tababar oo Turki Soomaaliya yiraahdo markabkaasna oo ahaa markab si sharci ah u soo dhaqaaqay Puntlandna ay weerartay oo ay xog kula wareegtay waayahay markabka xoog baa lagula wareegay haye bal fiir ilaa baan idinku dhaariyay markabku muddo 4 maalmood ayuu dansanaa badana iska dhex yeelay maamulka Puntland inta aynan markabkan ka warhelin xogtiisa maalmo ayuu meesha iska yeelay badweynta cid u soo gurmatay ma jirto cid u soo dhaqaaqdana ma laha marka haddii markabku sharci ahaa oo aan la tahriibinayn waxaa qasab ahaan lahayd markab hub intaa la eg wada ilaan hubku ciyaar maaha u socdo wadan ay argagixiso ka dhex dagaalamayso ilaalo ayuu u baahnaa lala socdo maraakiib kale ay la joogaan diyaarado waardiyeeyo u baahnaa intaasoo dhan sababta loogu soo raaci waayo mataqaanaa sifa sharciya kuma socdo haddaa la rabaa marka dawladdu inay xalaalayso hadda rabtaa waayahay waxay kaloo dawladda Soomaaliya tiri mararta aan shaashada soo saaro wuxuu waday badeecooyin ganacsina waa wadeynaa calaashan raashin uu waday qaybta ganacsiga Soomaaliyeed ayuu u rarnaa ayadana waa wada kale ilaa iyo maalintii Puntland ay qabatay ilaa iyo hadda ma hayno warbaahin ahaan wax raashina oo markabkaasi ku rarnaa cid aragtay raashinkaasna ma jiro tani qayb bay ka tahay marka beer la hawsiga ay ku doonayaan ugu yaraan in ay markabkaasi ku soo furfuraan waxa kale oo cajiib ah in ay dawladdu war saxaafadeedkeedu ku tiri dhammaan Soomaaliya oo dhan sugidda amniga Soomaaliya xoga hadalkaas waxa ka muuqda Puntland inay qayb ka leedahay hubka waayahay dawladdu marka madaacaday ka tahay markabkan hadduu Muqdisho tagi lahaa qayb kamid ah hubka Puntland loogu talagalay ma loo soo diri lahaa mise hadda la doonayaa in loo qaybi la yiraahdo noo qaybi wax la yiraahdo dawladda Soomaaliya
hubkan hadda in ay ka furfurto Puntland bay doonaysaa hubka qayba Puntland iskale calaashan inta kalena siiya intaad kala hari kartaan kala hara waay ma jirto qorshe uga dhigan Xasan Sheekh inuu Puntland hub siiyo ilaa maalintii dagaalkii Daacish ilaa iyo hadda bastoolad Xasan Sheekh Maxamuud oo Muqdisho ka soo dhiibay dagaalka Daacish lagama qayb galin marka waa been waxa la rabaa in laga soo furfuro Puntland si ugu yaraan jid iyo jiho u yeesho markabkaas si kastay noqotoba Puntland way ka jawaabi doontaa laakiin waxa xaqiiqo ah Puntland buu xalaal u noqday hadda Puntland ayuu xalaal u noqday markabkiina jid ayuu yeeshay wado loo raaco iyo meel loogu hagaago ayuu markabku hadda yeeshay waxaan leeyahay wixii waqtiga ka dambeeya